waxa aan murugada iyo xanuunka la qaybsanayaa waalidka Ikraan Tahliil Faarax iyo shacabka Soomaaliyeed runtii aad uga naxay aadna uga argagaxay waayideedii iyo in la iclaamiyey in la dilay. inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun. waxa aan codsiga ku biirinayaa waxgaradka Soomaaliyeed, siyaasiyiinta, aqoon-yahanada iyo dadka kale ee codsaday in baaritaan madax bannaan lagu sameeyo dilka Ikraan inay cadaalad hesho waa waajib dadka Soomaaliyeed saaran ee waxgaradka ah ilaa la ogaado dhiiggeedii meesha uu ku baxay. anigana kuwaas ayaan ka mid ahay daba taagan dhiigga Ikraan iyo dilkaas wax magaradka ah. runtii in la isku turtuuro ma mudna, waana wax lala yaabo in xataa kuwii lagu tuhmayey inay nabadda necab yihiin ay ka bari noqdaan oo ay iska fogeeyaan dilkeeda. dhanka kaleeto waxaa maanta isoo gaartay oo iyaduna runtii murugo leh in dad ku abtirsada ama ay isku hayb yihiin Ikraan una murugooday kana naxay dhibka gaaray ay maanta afduubteen 3 dhalinyaro ah oo beel kaleeta ah, iyaga oo tuhunka qaba in beeshaas dad ka tirsan ay lug ku leeyihiin hay-adihii ay ka shaqayn jirtay Ikraan. waxaan doonayaa inaan halkan baaq uga diro odayaasha waxgaradka iyo dadka Soomaaliyeed gaar ahaan degmada Beledweyne in dhalinyaradaas si degdeg ah oo shuruud la'aan ah ay xorriyadoodii ku helaan. sax ma ahan dhaqanka ah in dadka aano iyo waxyaabo noocaas oo kaleeta ah inta loo raadiyo dad aan waxba galabsan la haysto. arrintaasina arrin hadda u khidmaynayso ama waxtar u yeelanayso ma aha cadaaladda aan u goobayno Ikraan. waxa aan jeclahay inaan bogaadiyo ugaaska beesha ay Ikraan ka dhalatay, odayaasha dhaqanka, waxgaradka, maamulka degmada Beledweyne iyo aqoon-yahanada tirada badan ee maanta u gurmaday inay shaqaaqada halkaas taagan xaliyaan ilaa iyo haddana ku guda jiro. waxa aan rajaynayaa in dadaalkoodaas uu miro dhalo. waxa aan rajaynayaa dadka walaalaha ah ee ku wada nool degmada Beledweyne oo wax badan ay ka dhaxeeyaan inaanay shaqaaqooyin meelo kale ka dhacay iyo ficilo aanay iyagu lug ku lahayn aanay keenin xasilooni darro iyo kala fogaansho iyo dhibaatooyin kale oo sii dhaca. dhammaan waxaan ugu baaqayaa qaybaha oo dhan inay isdejiyaan, walaaltinimadooda ilaaliyaan, dhiigooda ilaashadaan, ayna ogaadaan in iyagu ay yihiin dadka ay wax ka dhaxeeyaan oo xigto iyo ehelo iyo qaraabo iyo darisba wada ah. dhalinyarada maanta la afduubtay waa macallimiin iyo dhakhaatiir iyo dad howlaha wanaagsan oo khayrka ay ka shaqeeyo. waxaan rajaynayaa inay si degdeg ah xorriyadooda ay u helaan. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.